السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan. Bacda salaan. Soomaaliya waxaan u maleynayaa waa daawateen Suuriya waxa ka dhacay. Madaxweynihii hadduu cararay Bashaar al-Asad keelashii markii la jabiyey waa idinka daawanaya arkayay. Dadka laga soo daayay 40 sano 30 sano 20 sano 10 sano ku jireen. qaar baa curyaamay qaar badan baa caqligooda iyo maskaxdooda isbedeshay qaar baa say u fadhiyeen ku dhintay meel ciidda ka badan baa ku jira ku dhintay gudaha midda kale jeelaldi maaha meelaha kani wax weeyaan dhul aakhira taxadka oo aan hawooyi waxba lahayn shaqa oo meel laga furo la garan waayo albaaba laga furo albaabadoodii baa leelaayay meel alla meel ay haayeen sida loo sameeyey buu dadka ku xidhi jiray oo qaar lagu gubi jiray cadaabdii caadi bay iska ahayd meesha dadka markii laga soo daayay wadinka qaarkood arkay qaar weli lama furin jeelashada furi kari waayay baa jira waan la garanayo meel laga furo iyo albaabadoodii toonna kuwii la soo daayay wadinka arkay waxay leeyihiin yaanu nahay xagaan joognaa inta badan maskaxda isbedeshay caqliga wadaad bay ku jiraan aakhira qaar bay dhaha beelay qaar bay inta badan caqliga isbedeshay marka waxaan la yaabaa Soomaali markay tiraahdo siyaad barana leen jiray iyo siyaad barana la xidhiidhi jiray weli qof curiyaan oo leeyahay jeel buu ku curiyay ama ku nabaal ma arkay wax yar malaadi markay ku jiraan baa la soo deyn jiray anagu dadkii dad joogay waan ahaa waaga iskuulada dhiganayay maxay ahayd dhinaca waqooyiga waa mana arkin wax curyaamay wax nabaal toon oo leeyahay waa la jeel buu ka soo baxay marka mushkilada ka dhacday waddanka wax kale ma ahayn shabadii baaso dagaalka ku soo qaaday waddanka kharibay burburiyay dhibaato lama qabin anagu waqooyigan joognay wax dhibaato ma jirin waxa haddii wax la xidhan oo la soo daayana wax lagu arkay bay haayeen maxay ahayd shicibku waa sinaaseen isku mid wada haayeen marka Soomaalidu tiraado siyaad baran leen jiray siyaad baraa jeelashan la xidhi jiray halkan aan ku jiray waan la yaabaa run ahaantii haddii la xidhay wax saas oo kale de maahay marmalay wax yar basiida bay ahayd qof markuu xoogaa ku jira bal soo deeyay la cafinay marka xaqdara waxa laga galay maxay ahaydeen nafsiga laga galay siyaad bar laga galay horumar badan iyo wanaag badan buu lahaa marka nafsiga laga galay waxa ilaaha tan soconaya oo Soomaalidu deg weyday marba marka dambe ay ka sii darayaan xaqdara ay ka galeen haddii khaladaad ka dhacay wax dhaceen maxay ahaydeen wax lagu kalifayay baan arkaa anigu dhibaatooyinkii soconayay baa ku kalifayay taas marka anigu taa maxay ahayd waxa kama oran karo laakiin waxaan cadeynayaa inaan weli arkin qof jeel ka soo baxay ku curiyaan ama ku nabeela marka waxa leeyahay anigu Soomaaliya Ilaahay u toobad keena bilaa inuu degtaano dhiigga islaamka daadanaya joogsado halis daba qabtaan leeyahay waa idinka arkay wadamada sida loo cadibay dadka waxa la daawan karo de ma wax xaqal suura laga soo saaray fajac baa ku dhacay wax sanad ummadii akhri meel soo daayay aakhiro inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leenahay isdaba qabta qaarkoodna markii maxay ahayd wixii miyir qabay xoogaa miyir qabayna guriyooda markay yimaadaan waxay imanayaan guryahooda dunsan oo baaba dhulkii baabaya dadkii meel la mari jiraan kan warayaan dhintaa ka qaxa guriyooda baabayin baa kaya dad badan baa arkay marka dibadda ka qaylinay guriga waa kan guriga dunsan yihiin marka dawladda tan waatay ku garaaci jirtay diyaaradaha guryaha oo shicibka leen jirtay caruuraha waayeelka cid kasta xalab meesha la yiraahdo darcay maxay ahayd maashi kale darcamiyay laba magaalo baa jirta soo degaan oo aad ay u garaaci jireen si xun garaaci jireen oo dadkii ku dhamaadeen yar iyo weynba qaabo ka guriga imaadaan bay imanayaan guriga finish anka umada Ilaahay u gargaar baan leenahay Ilaahay u booga dhago caqligooda iyo iimaankooda ku soo cesho inta maskaxda waxa ka noqotay maxay ahayd murada Ilaahay u sahlo inaga culayska Ilaahay naga dulqaado Ilaahay umad wanaag hogaamiyayaal wanaagsan waddanka keeno cadaalad oo Ilaahay ka baqaya oo ummadda islaamada isu keena marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh